cali leeyahay mar walba haddii aad maraykan timaado ama aad ku hamiyeyso inaad timaado maraykan shaqooyinkiisu aad bay u badan yihiin lacag badanna waa laga sameeyaa lacag macquula iyo lacag aan macquul ahayn dadka qaarkood way ka sameeyaan hadba aday kugu xidhan tahay hadba saad u shaqayso ee jiinkaagu u shaqeeyo ayuunbay ku xidhan tahay alaskoo kale iminka dhulka markaan joogno oo kale dee magaalooyinka laga shaqaysanayo dadka qaarkood markay bishii 10 kun qaataan dadka alaska ama badda aaday imisay qaataan 3 bilood $30,000 bay soo qaataan yaa qaata waraxmatullaahi wabarakaatu soo noqod wanaagsan oo xiisle waa walaalkiin Xuseen Cabdi Xasan ama aad taqaanaan garweyne ku soo dhawo channelkayga mar labaad iyo mar saddexaad haddii channelkayga soo booqatay fiidiyoga sii share gare like tana ku qabo raygaagana waa muhiim commentiga soo qor subscribe kana ilaaw inta markaan ka imaado maalmihii ugu dambeeyay ama labadii cisho ugu dambeeyay baan update ahaa YouTube-kayga laakiin hadda laga bilaabo waxaan jecelahay inaan mar walba update ahaado wararka saxda ah iyo waxay dadku u baahan yihiin inaad bartan adigala wadaagi doontaan ayaan aad u jecelahay ama riwaayado noqoto ama musalsal kale ha noqoto ama waxyaalo kale oo dadku aad u xiiseeyaan ha noqoto inaad bartan mar walba aan soo gelin doono ayaan niga ballan qaaday insha Allah haduu Ilaahay dhaxdo dad baa waxay soo weydiiyeen Xuseen Garweyne waxaad ka soo hadashaa dalka Mareykanka waxyaalaha la qabtay shaqooyin ah su'aashaas ay dhowr qof soo weydiiyeen marka taasaan maanta inaan rabaa siday tahay aan isku dul istaagno waan dul istaagayna habka wax loo qabto iyo dadku cusub markay wadanka soo galaan habkay wax u bilaabayaan sheekadaas aniga daba geeraya inaad si fiican u qaadan doontaan baan jecelahay dalka Mareykanka shaqooyin nooc ma la qabtaa maxay tahay shaqooyinkiisu ay dadku isu weydiiyeen laakiin shaqooyinka la qabtaa wax 1 iyo 2 iyo 3 toona la oran kara ma shaqooyinka dalka Mareykanku aad bay u badan yihiin oo wax aad u badan weeyaan marka maanta haddaan soo qaato oo idhaahdo kan iyo tan iyo ka ma oran karo laakiin qofku markuu dalka Mareykanka ku cusub yahay shaqo nooc meeyo qabtaa si xaqu ka bilaabaa ayaan oranaya wuxuu ka bilaabaa qofku markuu dalka Mareykanka ku cusub yahay shaqada ugu horeysa ee uu qabanaya maadaama qof cusub yahay shaqadu qabtay waa weeyaan shaqa laaliya shaqadii ka soo horbaxda ayuu qabanaya waayo waqti xadirkaasaga wuxuu baahan gacan qabasho u baahan yahay wuxuu u baahan yahay inuu baabuur iibsado oo shaqada ku aado oo aqalkiisa ku yimaado ayuu rabaa haddaba dalka Mareykanka lacagta qofku markuu shaqeeyo lacag intee leeg buu qaataa lacagaha waxay ku xidhan yihiin hadba state-ka joogto ama gobolka joogto ayay ku xidhan tahay haddii gobolka aad joogto lacagtiisu ay high tahay ama maciishadiisu ay high tahay shaqada lacag fiican baad ku shaqeynaysaa laakiin gobolka aad joogto haddii noloshiisa ama maciishadiisu ay iska jaban tahay oo guryaha la degan yahay iska jaban yihiin in shaqadu lacagteedu ay iska yaraata laga yaabaa maadaama ay noloshii kale ay jaban tahay inay lacagtu aad ku shaqeynaysaa markaa iska yaraato ayaa laga yaabaa inkastoo markaa inagu aan Soomaali nahay aan jecelnahay waxyaalo aan wax ka faa'iidi karayno ama lacag badan inaan markaaba aan sameeyno laakiin xaqiiqo waxa ah qofka dalka Mareykanka haduu lugaha soo geliyo ama Mareykanu yimaado inuu mar uu lacag sameeyo taasi ayaan shaki lahayn si walba ku sameeyo oo si walba ama shaqeeyo habeenimo maalin ama dhowr shaqo isku qabto lacag inuu sameeyo taasi shaki la'aan weeyaan lacag haddaan idhaahdo maanta qofka ugu badan dalka Mareykanka bishii ama 4 isbuuc wuxuu qaataa 10 kun haddaan idhaahdo qaarkood waa la yaabayaan waxay oranayaan lacagta inta leeg suu qaadan karaa bishii 10 kun dadka qaarkood ba 10 kun qaata waa lacag aad u badan weeyaan haddii aad Yurub joogto kulley toole asxaabtayda Yurub joogtay aad bay u yaabayaan waxay oranayaan qofka bil 10 kun ma qaadan karo anaguna 300 baan u qaadanaa see ku dhici kartaa bay oranayaan laakiin dadka qaarkood ba 10 kun qaata qaar ba 5 kun qaata qaar ba 3 kun qaata qaar ba wax inta ka sii hooseeya qaata laakiin gobolada iyo shaqooyinka ay qabanayaan iyo maciishada waxyaalahaas ayay ku kala xidhan tahay mar walbana waxaad nacam nolosha Mareykanka
iyo ta Yurub marka la isbarbar dhigo noloshan Maraykanku aad iyo aad bay u fiican tahay. Waxaa leeyahay mar walba haddii aad Maraykan timaado ama aad ku hamiyeyso inaad timaado Maraykan shaqooyinkiisu aad bay u badan yihiin, lacag badanna waa laga sameeyaa, lacag macquula iyo lacag aan macquul ahayn dadka qaarkood way ka sameeyaan. hadba aday kugu xidhan tahay, hadba saad u shaqayso ee jiinkaaga u shaqeeyo ayuunbay ku xidhan tahay. Alaskoo kale iminka dhulka markaan joogno oo kale dee magaalooyinka laga shaqaysanayo, dadka qaarkood markay bishii 10 kun qaataan, dadka Alaska ama badda aaday imisay qaataan 3 bilood $30,000 bay soo qaataan. yaa qaata qof Yurub jooga intaa ma qaadan karo. xaqiiq marka laga hadlo noloshiisa 30,000 3 month ama 6 month wax ka yar kuma soo qaadan karo. $30,000 kuma soo qaadan karo. marka waxaan leeyahay asxaabtayda, shaqooyin fiican ama shaqooyin badan oo qof waliba intuu rabo uu ka shaqaysan karo ayaa dalka Maraykanka ka jira. waana iman kartaa oo adun bay kugu xidhan tahay, ama qaxootinimo ku soo gal ama si kaleba ku soo gal. lacago ama shaqooyin kala nooc oo kala duwan oo qof waliba tuu rabo uu gali karo ayaa ka jira. marka waxaan leeyahay lacag fiicanna waa la qaataa. asxaabtayda Yurub aad iyo aad aan mar walba markaan anigu aan xasuusto Yurub oo kale iyo maanta Maraykan markaan joogo, dee isku meel ma dhigan karo. Yurub iyo nolol la'aan bay kala tahay. marka xaqiiqda aan ka hadlo, Yurub dee waxba ma dhex yaalaan. xaqiiq markaan ka hadlo, Yurub qofka noloshiisa ugu badan 3 kun buu ka shaqayn karaa hadday ugu badanto. laakiin Maraykan oo waliba 3 kun markuu shaqeeyo qofku Yurub joogay aan dee wax safe xitaa uu samaysan karin. laakiin Maraykan 3 kun iska daaye waxaad rabtaa safe garaysan kartaa. marka waxaan leeyahay asxaabtayda, yaanan hadal lagu daadin. shaqooyin badan oo dalka Maraykanka ka jira way jiraan. waxyaalaha la kala qabto iyo waxyaalahaasna waan iga waramay. update-na waan ahaan doonaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. channelkana ha ilaawin mar walba subscribe aad ku qabato oo sii share garayso oo like oo raygaagana aad commentiga uga soo wadaagto. intaa fiidiyooga ku xiga aan ku kulmi doono waxaan leeyahay waa walaalkiin Garweyno oo isma dhaafo.